وطايالك نجمع غليسان وإذا عدا كي الواي هل إبرهال دبيوتو تضبعات كبرشة الصومالي ده أمريكان كا دقيستيال وحامرتي برنامج كان مانتا إنوغوها إساق شيخ محمد أو إستاقوا مدحة هي أدى ليغاسي سنتر أما با هي أدى مدحة بنان إلا هم قعابو ده فرنانتا أما فرنانتا فدقدو هاي بقالة مينيابوليس يدلك أمريكان كا هذا barnaamijkan isaga ah waxa aan uga hadli doonaa bal hay'adiisa waxa ay qabato iyo waxa ay ka shaqeyso isla markaasina iyada oo dadka na dhageysanaya ay su'aalahooda ay weydiin doonaan haddii alla idmo وقتها مركز غوريسا كسر دو إساق إذا عدا كي الواي هل إبر هل دبيعة تضرب عدك برشلة صومالي دا أمريكان كا waad mahadsan tahay mursal adiga iyo bahda saxaafadda KLAY codka shacabka dalka Mareykanka Soomaalida waxaan idinka mahadcelinayaa martiqaadkaadii sameyseen idinka qayb gala barnaamijkan aad iyo aad baad mahadsan tahay barnaamijkan waa barnaamijkii saaka iyo Minnesota oo aan badanaa aalaab ku soo qaadi jirnay waxyaabaha ee dadka ku nool waddanka gaar ahaan Minnesota ay isku dhaafsanayaan talo iyo ra'yi iyo fikir isla markaasina maalmaha sabtida iyo xadan ku soo qaadano qaar kamid ah khubarada Soomaaliyeed ee iyagu mas'uulka ka ah hadii ay noqon lahayn hay'ado hadii ay noqon lahayn arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada intaas aan ku soo qaadnaa maantana nasiib wanaag waxa idaacada Martino ah Isaaq Sheekh Maxamed oo isagu madax ka ah hay'adda daahfurnaanta aan soo sheegay bal marka ugu horeysa Isaaq waxaad warbixin naga siisaa kooban hay'addan maxay tahay magacaasi Legacy Center maxaad ugu bixiseen maxay tahay ujeedadeeda loo asaasay bal hay'addaas naga sii muuqaal kooban waad mahadsan tahay mar labaad mursal hay'addan Legacy Center waa hay'ad madax bannaan oo ka shaqeysa nabadda iyo hufnaanta dalka Soomaaliya waa hay'ad cilmi baarid oo aan ahayn hay'ad humanitarian ujeedadeedana ay tahay in ay baarto waxyaabaha saldhigga u ah nabad la'aanta iyo deganaansho la'aanta ka jirta Soomaaliya waxaan diiradda saaraynaa saddex arrimood oo kala ah isla xisaabtanka iyo hufnaanta dawladnimo oo systemka dawliga sida uu shaqeynayo dawladda waxa ay qabanayso in la ogyahay awoodeeda si ay u isticmaalayso in la ogyahay dakhliga iyo kharashka baxay iyo waxa soo gala sida ay loo maareeyay in lala socdo nabadda dalka sidii ay u soo dhigan lahayd iyo aakhiriyan sidii loo heli lahaa bulsho Soomaaliyeed oo nabad iyo dimuqraadiyad ku wada nool marka intaasaan yaan muhiimadda saaraynaa saldhigganaga waa Mareykanka laakiin wuxuu focuskanaga yahay Soomaaliya sidii ay arrimahan soo sheegnay aan uga qaban lahayn macna fadhigiinu waa waddankan Mareykanka saacada Soomaaliya marka qaabka aad uga shaqeysaan Soomaaliya muxuu yahay ma halka ka maamushaan maxaa xafiis ku leeyihiin maxaa qabataan Soomaaliya waan tagnaa waa ka registerstay awda oo xafiisyo ku leedahay Soomaaliya iyo Kenya labadaba oo halkan aan ka maareynaa laakiin xaggana waan tagnaa influence aan ku leenahay oo dad baa jooga oo nala shaqeeya marka nooca u shaqeysaan sidoo yahay qaabkii u shaqeysaan hay'adaha waa dhowr nooco qaarna waxa la yiraahdaa humanitarianka oo hay'adaha samafalka bini'aadanimada exactly oo inta dhaqaale wax aruuriyaan marka ama isbitaalada dhisa ama iskuulada dhisa ama cunto iyo waxyaabo noocaas ka shaqeeya
هذا قارنا وهذا اللي يراهدو think tank oo advocacy ka shaqeeya dadka macnaha in dadka bulshada sidii wax loo ogeysiin lahaa sidii wax bulshada macnaha maskaxdeeda kor loogu qaadi lahaa fikirka bulshada haday tahay wax ku saleysan shakhsi ama dawladda ama bulsho gooni ah ama siyaasad gooni ah ku taxalluqa annaga marka waxaan qaadanay mabda'a cilmi baarid aan sameeyno aan ogaano waxyaabaha saldhigga u ah Soomaaliya dhibaatada ka jirta kadibna aan soo jeedino sidii looga bixi lahaa dhibaatooyinka soo jira ee Soomaaliya inta ragaadanay isagu waa yahay in adaha cilmi baaristu aad iyo aad ay u badan yihiin Soomaaliya markii la eego hadii ay noqon lahayn kuwa ajnabiga iyo kuwa Soomaaliya oo Soomaaliya u dhashay intaba marka warbixinada aad sameysaan ama waxyaabaha soo saartaan oo hadda sheegaysa mas'uul waxaad baartaan waxyaabaha saldhigga u ah dhibaatooyinka Soomaaliya waxaan ognahay dhibaatooyin baa ragaadiyay oo dawladnimadii iyo dhaqaalihii iyo noloshii iyo waxbarashadii wax kasta hortaagan marka maxaa idin soo baxay idinka markaad eegteen dhibaatada salkeeda Soomaaliya dhibaatada salkeeda waa 20 sano ka badan salkeeda muxuu yahay ma ogaateen hortu intaanan taagin waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo maxaan anaga u sameynay hay'adan maxaa idin ku dhaliyay maxaa nagu dhaliyay markaad fiiriso dadka Soomaalida waliba dadkii Soomaaliya wax ku soo bartay la soo hana qaaday Soomaaliya markay dawladda ahayd waxaad dareemi kartaa muhiimadda ay dawladnimada leedahay waxaa ogtahay oo jira in 25 sano la soo dhaafay Soomaaliya waqti badan la gelinayay dhaqaale badan lagu bixiyay shirar badan la qabtay sidii Soomaaliya dadka loo heshiisiin lahaa ay dawladnimada soo noqon lahayd ay nabad soo noqon lahayd hadii Djibouti lagu qabtay hadii Kenya lagu qabtay Ethiopia lagu qabtay Suudaan Masar Talyaaniga Turkiga Ingiriiska Yurub iyo meel walba lagu qaban malay haddana waxa arkaysaa in wax hal oo la taaban karo inkastoo horumar badan la sameeyay markaad fiiriso sidii la ahaa 1995 iyo 98 2000 hadda ma hadda taabay ku hadda macnaha horumar la sameeyo dadka saddex socdaan oo at least dawladii wax system u shaqeynayo haddana in markaad isbarbar dhigto waqtiga galay iyo dadaalka galay iyo waxa la hayo hadda inaysan wax isku dhawayn waxaan markaa niri maxaa hortaagan marka dadaalka inta la eega baxaya maxaa hortaagan مثلا هذا اسبربر dhigta dawladda Liberia oo kale oo ayadana dagaal sokay ka dhacay markii way ka baxday 2006 kii ba madaxweynaha hadda jooga gabadha la doortay Ellen Johnson waxaad arkaysaa marka inay markiiba dadaal badan sameysay oo dawladnimadeedii ay soo noqotay oo nidaamkeedii iyo haybadii dalka u lahaa Rwanda ka sii liidatay Rwanda nasaasoo kale waxaan markaa niri Soomaaliya marka waxa haya ay la deglaadahay ma wax hadda ku cusub hadda bilowday ma soo wax hore u sii jiri jiray wadanka marka fiiriso dawladii hore Maxamed Sallallahu Alaihi Wasallam ka maxaa riday marka adduunka inta badan waxaad arkaysaa in markii midalan wabiga kugu soo jabaadiga wabiga inta kugu soo badoobiyo kugu soo baxaan dadku waxay sameeyaan biyaha waa iska xirayaan sanadka soo socdana waxay sameynayaan carratuur si biyihii mar dambe aysan u soo jabsan waxaan markan niri maxaa riday dawladda Maxamed Saadar maxay u dhacday markii ugu horreysay horta waxaan marka ogaanay oo arkaysaa qofkii joogay waqtiga asaga wuxuu ogaanayaa in qofka baasaboor u baahdo Maxamed aaday haddii uu qofka u baahdo bangi inuu deyn ka qaato Maxamed aaday xamar bay ku koobnaatay dawladii oo hadduu qofkii takada wax ka jirsanay xamar ka jirsanay oo haddii macnaha waxaad arkaysaa in kun taqriiban arday ah oo Soomaali ay high school ka soo bixi jirtay sanad walba jaamacadaha Soomaalida ama 2 sano ama 4 sano ahaana wax yar ay intaas ay ka macnaha ka qaadi kareen oo miisaankooda uu inta ka badnayn intii kale ay marka xamar shaqo soo doonan jireen dawladooda marka xamar ku koobnaatay marka taas waxay sababtay marka in maadaama dawladii waxay haysay uu yar yahay baahidana ay badan tahay in garab iyo musuqmaasuq iyo awood iyo khalad loo isticmaalay iyo qof ku xiran iyo istreex fara badan meesha inay ka yimaadaan taa waxay keentay marka dadkii inay u dul qaadan waayaan dawladii waxay sameeynayay ay ku kacdo baan marka dawladii marka aysan ku dhacdo haddii marka dawladda ay dhacday waxa macquulka qofka insaanka caqliga leh uu ku fikir lahaa in la yiraahdo wixii nabaabiiyay aan ka hortagno aysan ugu soo noqonin haddana waxaad arkaysaa inay wali wixii socdaan iyada
marka waxaan idhi marka bal cilmi baarid aan samayna waxyaabaha saldhigga u ah aan marka one item aan mar qaadana marka oo hal shay marba aan shay qaadano waxaa marka nidhi musuqmaasuqa aan fiirino iyo saameynta uu ku leeyahay Soomaaliya maanta ma fahamtay marka waan baxnay wadankii baan tagnay okay anaga su'aasha waxay daba taagan tahay maxaa idin ku dhaliyay in aad samaysaan hay'adan exactly xamar baan tagnay waxaa marka dad badan baan la kulanay oo ka tirsan executive-ka dadka madaxda ka dawladda waxaan la kulanay dad badan oo judiciary ka tirsan oo maxaakiimta iyo xagga sharciyada ka tirsan dad badan oo legislative-ka ka tirsan oo baarlamaanka iyo xagga ka tirsan information badan baan aruurinay waxaa marka noo soo baxday in macnaha bal wax badan inay jiraan marka fikriyan haddaan usoo noqo jawaabtaada macnaha waxaan nagu dhaliyay inaan hay'adan samayno in bal qaabka wax loo sameynaya qaab ka duwan in wax loo sameeyo si maxsuulka noo soo baxayay maxsuul ka duwan loo helo soo baxo loo helo oo matalan haddaad laba ku dhufo tiraahdo afar ku soo baxaysa mogta laba ku darma qadiraana afar ku soo baxaysa hadaa marka 6 inay ku soo baxdo hadaa rabto waa inaad nambarada wax ka bedesho waa inaad saddex ku dartaa ama laba saddex ku dhufataa exactly hadii laakiin maanta idil ku hayso laba ku dhufo inay 6 ku soo baxdana arabto ma ku soo baxayso waata isagoo markaa su'aashayni aan dib ugu noqono tii ahayd marka maxaa aragteen oo sal u ah marka haddii aad baaritaankaas dheer aad samayseen oo aad wadankii tagteen oo aad la xisaabtanteen oo aad cid kasta la kulanteen maxaa idiin soo baxay maashan dhibaatada Soomaaliya ee ragaaday maxaa sal u ah maxaa looga bixi doonaa waan gaarina oo su'aasha way imaanaysaa bal waa salka maxaa u ah maxaa idiin soo baxay oo aragteen alleelahe dhibaatada Soomaaliya waxaa sal u ah ma qabiilka iyo qabyaalada ma maxay ahayd fargelin kale oo shisheeyo oo dibadda ahaa ما يعني ما حد يسوى ما فقر يسوى لماذا يعني ما حد يسوى بحي إن وسؤال هرتو وين سؤال شايدا لكن أنا مركان ودن كتجني على بارد بان سميني أو بش شنتة دي بان جامعة متروبوليتان ستيت يونيفرسيتي بان يعني شركة قبلني أو كوسو بندقني على بارد أنا سميني وحي كسو بحي دتك الصومالي ده أنا لو ده إذا عدها وي تبين waddanka markaan tagnay oo baaritaanka aan ku sheegay aan sameynay afar qaybood baan baaritaanka aan u sameynay awalan waxaan sameynay inaan dadkan ku sheegay dalka madaxda ka ah inaan iyaga aan wareysano iyo dad kale oo aan islaanahay waa u dhunduleelan Soomaaliya xaaladeeda marka labaad waxaan sameynay inaan raadino waxana loo sheegayo information-ka ee la siinayo wax macnaha cadeyn u ah oo tusaya inaan raadino marka saddexaad waxaan sameynay marka inaan bulshada Soomaaliyeed inaan wareysi ka qaadno oo survey aan sameyno marka afraadna waxaan sameynay in wax alla wixii laga qoray Soomaaliya ku saabsanaa musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta transparency-ga iyo corruption-ka la xiriiray inaan aruurino marka intaan marka isu geyno information kaas afarta qaybood ka kooban inaan markaa aan cilmi baarid ka sameeyno waxa marka noo soo baxay markan ku soo koobo oo waxay tahay in musuqmaasuqa dhig u yahay dhibaatada Soomaaliya ka jirta haddii ay ahaan lahayd nabad darrada Soomaaliya ka jirta haddii ay ahaan lahayd siyaasadeeda deganaansho la'aanta ka jirta haddii ay ahaan lahayd dhaqaale darrada waddanka haysata iyo shaqo la'aanta waddanka ka jirta markaad isku soo wada duubtana waxaad arkaysaa in uu asaga saldhig u yahay jiritaanka al-shabaab ay jiraan iyo in dad cusub ay ku biiraan al-shabaab oo dhalinyarada cusub in al-shabaab ku biiraan Soomaaliya jooga iyaad arkaysaa taasoo markaa saameyn ku leh Soomaaliya dhibaatada ka haysata hadda nolosha dadka iyo siyaasadda iyo deganaanshaha xitaa meeshan aan joognay Minnesota saldhig kule oo dad badan oo ilmaheena kamid ah ay aadayaan Soomaaliya waa tahay isagoo haddii hay-adiina iyo ilaha kala badanaaba markii la sameeyo baaritaan iyo xog ururin iyo howlqabad weyn waxaa jirta markii la isku soo duubo inaad ciddii mudnayd aad siisaan ama talooyin aad raacisaan tala ka bixisaan
aynu qoraaladii aad soo samayseen ilaa iyo haatan ama baaritaankii aad soo samayseen iyo talooyinkii aad ka bixiseen yaa ka faa'iidaysta oo aad u gudbisaan markaa dhowr qaybood marka talooyinka anaga aan horta anaga mabda aan ku shaqeynayna wuxuu yahay in dadka Soomaaliyeed in la kiciyo oo dad shisheeye waxba kuma qabanayaan dadka Soomaaliyeed in la kiciyo in ay fahmaan dantooda waxay tahay taasna waxaan u sameynaynaa inaan dadkii iskama kicin kar dadkii waa inaad wax dhaba tustaa oo la taaban karo inaan marka tusnaa dhibaatada iyo saameynta uu ku leeyahay musuqmaasuqa dalkooda iyo dawladooda iyo dadnimadooda taa markaan tusna marka in dadkii marka iyaga ay fahmaan dhibka uu leeyahay iyagii marka ay kacaan oo publica dadka ay dawladii ay la shaqeeyaan la xisaabtamaan oo movement ay sameeyaan shacabkaas marka movementiga sameynaya yaa ugu muhiimsan anaga horta cidda aan muhiimada saarayno waa taas waxa reportkanaga uu Soomaali iyo English ba u yahay laakiin qaabkee bay kula tahay maadaama shacabka uusan ahayn kii gacanta ku haya awoodii ama awoodda ciidan ama awoodda talo ama awoodda siyaasadeed maadaama gacanta uusan ku haynin shacbiga dabcan wuxuu u baahan yahay hoggaan buu u baahan yahay yaa shacabka suu kacaya qaabkee u xisaabtamaya waa runta horta warbixinta dawladda waan la wadaagnay oo dadka ay mudan tahay dawladda in lagala wadaago waan la wadaagnay sharci dejinta iyo maxaakiimta dadka ku shaqeeya dadkan international donorska ee Soomaaliya caawiyana waan la wadaagnay dadka shacabkana waan la wadaagnay dadka shacabka marka hoggaan way leeyihiin Soomaaliya dawladda ka jirta dawladda Soomaaliya ka jirta malihin laakiin ma tahay dawladdu mid la xisaabtami karo oo wax la weydiin karo oo xafiisyadu furan yihiin oo loo tagi karo waxa jira meesha mashaakil baa ka taagan oo ka soo qaad marka soo qaadno waxa dawladdu waa hab qaybsi iyo maxay ahayd 4.5 ma dawladdu lagu qaybsaday dadkuna waxay qalbiga ku hayaan ama niyadda ku hayaan inay albaabka wasiir aan qabiilkooda ahayn ay garaaci karin ay waxba u sheegi karin dadkii qabaa'ilkiina waxay noqdeen in ay difaacaan yani ruux aan ayagana wax tarayn ummadina wax tarayn marka shacabka sidaas ah sideeba dawladda ula xisaabtami karaa dawladda saas u qaybsan waxyaabaha aan cilmi baaritaan ku aragnay waxaa kamid ah in dadka shacabka ay qayb badan ka yihiin musuqmaasuqa jiritaankiisa okay way dhamaystir doontaa in sabab marka hore aan dadka siino telefoonka inay soo wici karaan dadkan dhageysanaya waxay naga soo wici karaan telefoonka lambarkiisu yahay waa 6 marka la jaan ku celiyo waa 612-353-5596 barnaamijkan waxaa marti inoogu ah Isaaq Sheekh Maxamed oo isagu ah madaxa hay'adda daahfurnaanta amaba muuqaalka aan daahsoonayn oo hay'adiisana ay tahay mid ku lug leh in ay baarto waxyaabaha ama dhibaatooyinka dalka Soomaaliya haysta kadibna ay ka soo saaraan talooyin iyo sidii ay wadanka ay talooyinkaas u qaadan lahaayeen marka la jaan ku celiyo telefoonka waa 62355 waa soo beegsan kartaan telefoonkaas idinka oo markaa weydiinaya qaybaha kala gedisan iyo dhibaatooyinka dalka Soomaaliya hay'adan daahfurnaanta ama Legacy Center waxa ay ka wado ama ay ka qabato telefoonka naga soo wici karaysaan waxa uu yahay 612-353-5596 waxaana marti barnaamijka noogu ah Isaaq Sheekh Maxamed oo isagu madax ka ah hay'adda daahfurnaanta macnaha hay'adda iyadu doonaysa bal in ay ka dhaliso dalka Soomaaliya muuqaal cad oo aan lagu kala gaban karin
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا magacaaga halkaad naga soo wacaysid. magacaygu waa oday Mustafa waxaan naga soo wacayaa Minneapolis. ahlan wasahlan Mustafa soo dhawow waad maqlaysaa soomaha barnaamijka saakay. xogaa waa la socday waxaan ka soo gaaray. okay codkaaga ba horta iska gaabi idaacadda iska gaabi. waxa weeye hadda barnaamijka waxaa marti noogu ah Isaaq Sheekh Maxamed oo isagu ah madaxa hay'adda daahfurnaanta amaba Legacy Center waxaa lagu magacaabo waxa ay baaris ka wadaan waddanka Soomaaliya oo ay doonayaan bal inay ka soo saaraan talooyin iyo warbixino ku saabsan dhibaatooyinka haraadiyay dalka Soomaaliya haddii ay noqon lahayd arrimaha qabyaaladda musuqmaasuqa eexda dhibaatooyinka dhulka la galay ee dhaqaale darrida saboolnimada mashaakilaadkaas oo dhan ayay rabaan marka taas ayuu ka warbixiyey hay'adiisa waxay qabatana waa ka warbixiyey marka wixii su'aalaha oo aad weydiin lahayd ama wixii raacsiina oo raacin lahayd waan ku taageersanahay masha Allah waxaa loo baahan yahay dad noogaa u istaaga damqashada iyo damirka Soomaaliyeed dadkeena baaba'aya oo aan cidna ishaybinaynin dhibaatada waddanka ka jirta oo aan cidna ishaybinaynin madaxda qaarkood oo ka aamusan dhibaatooyinka ama dhiigga daadanaya oo waxyaalo badan aan noqodaa dhanka security dhan walba aad baan u taageersanahay inay dad u istaaga ama hay-ad u doodala helo ama hay-ad mataqaanaa xaquuq iyo xoogaa dawladda mataqaanaa waddankiisa iyo nabadgeeda u horseedaysa la helo aad baan u taageersanahay waxaana aad ugu darsan lahaa ama su-aalana qaba waxaan ku darsan lahaa intaana su-aasheeda u gudbin inay xoogaa siiba dhanka mataqaanaa security-ga iyo dhanka mataqaanaa xoogaa weli waxaa u malaynayaa waddanka Soomaaliya inuu qabiileysiga iyo xoogaa dad ay ku arka lafaha uga jirta inay dhanka ay ka dadaalaan iyo dhanka security-ga ayaan aad ula talin lahaa su-aasheeda kalena waxaa weeye ma dadkaas soo abaabulay hay-addan sidee bay shaqada ku bilaabayaan halkee bay ka bilaabayaan balse maxayse ay mataqaanaa ay guushoodu tahay inay gaaraan aad baa umaadsanta waxaan filayaa inuu ku maqlayo Isaaq inuu hadda su-aashaasi uu kaaga jawaabi doono haya Isaaq. Mustafa waa mahadsan yahay annaga horta hay-addanada waxay ka shaqaysaa daahfurnaanta iyo nabadda oo isku xiran waanan bilownay shaqada cilmi baaridii ugu horreysay aan sameynay maxsuulkeediina waxaan soo bandhignay bishan hadda aan ku jirno March 5teedii waxaan shir ku qabanay jaamacadda Metro State oo aan kusoo bandhignay oo partnership nagala shaqeysa barnaamijkan ujeedada annaga waxa aan rabno in aan gaarno wuxuu yahay in la arko Soomaaliya oo ka bogsootay musuqmaasuqa iyo cadaawadda dhexdeeda ah dadkeeda iyo hay-adaheedana isku maamulayaan sharaf iyo qiimeyn nabad iyo cadaalad waa taa waxa aan rabno waxa aan ku salaysanahay waa cilmi baarid inaan sameyno kadibna aan soo bandhigno cilmi baaridanada resultigeeda taas oo aan ku baadigoobayno in la ogaado waxyaabaha saldhigga u ah nabad la'aanta Soomaaliya ka jirta deganaansho la'aanta Soomaaliya ka jirta siyaasadeeda oo deganaansho la'aanta haysata kadib marka la ogaadana sidii looga bixi lahaa in la helo waxyaabaha aan ku ogaanay cilmi baaridanada taakuleeya musuqmaasuqa Soomaaliya ka jira waxaa ka mid ah in ay isku xiran yihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda oo qofka siyaasadda ku jira ay u fududahay inuu dhaqaale abuuro kan dhaqaalaha haystana ay u fududahay inuu siyaasadda saameyn ku yeesho waxyaabaha kale aan ku ogaanay waxaa ka mid ah cibaarada aan sameynay in dadka in musuqmaasuqa uu systemka ka mid noqday oo dadkii uu dhaqan u noqday oo qofka Soomaaliga ah uusan musuqmaasuq u arkin wax dhib ah مثلا هذا قصة قاعدة هي أدوى حاجة سميسي علم بارد قصة بسن إبك الصومالية وأن تارجت قرين واحد جونيا وحددك ويدي سمرك إن الشيء واحد إبك صوماليا صدق واحد يجا يوم العنيان بقول كيبا نمبر آد أفر بدن كل لو تدبات سديت إنه حيل هذين على الشباب أمن حلقف مشي المسماسك أنا مركز علم بارد أن سميني أو specifically أن ويديني وحي معناها وحي ملايين يعني سامينت ومسك كلها دلك الصومالي ما أنت وحكي جرا إلا دتشم بقولوا قف دوبان يعني تلفونه وتلفون ورسنا لحدا يلا بقول كل واحد مسك أصل لقوا
way ka badnaayeen intii shabaabka tiri waxaa ka badnayd shabaabka waxaa tiri 24% xaqiiqatan waxa weeye waa musuqmaasuq weeye markii aan la weydiinin musuqmaasuq ilaa maxaa Soomaaliya dhibka ay saldhig u ana macnaha musuqmaasuq waxay ku tusay inuu ka mid noqday dhaqankooda iyo dabeecaddaas uma arkaan marka inuu dhib yahay in lagu baraarujiyo marka iyo u baahan yihiin and that's waxa anaga aan sameynayno waa tahay Mustafa waxaan filayaa jawaabtaasi iyo faahfaahintii uu bixiyay saaqba in ay ku deeqeen iminkana hadda telefoonka khadka waa 612-353-5596 aan ku celiyo waa 612-353-5596 weli waxaa inoo fadhiya martida isaaq khadka telefoonka halo salaamu calaykum أهلا وسهلا مقعي هل كان نقص وعيسيد مقعي وعبدي وحن كسوعي مينيابلس أي عبدي نيكو ضجا وسلام يا الله وسلام يا وكاغاد سلام تاس أنا وسؤال شو حوي وقت نيكو هو في عم ما دام إنه الصومالية دولة الحقيقية دولة الثمانية أي مدحونه أي شغل فقل ما تكون كده معك يبقى الله إنك وسائل الشقينية والشقين بقشتنية وقوات له وعدالة وشقينية marka kolaydu waa hawl balaaran oo adag weeye marka waxa la yiraahdo ku fuday laakiin siyada loo heli karaa dawlad shaqaynaysa oo wasiiro iyo baarlamaan shaqaynaya oo cadaalad ku shaqaynaya alba ma santahay abdi waa ku maqlayaa isaaq waxaan rajaynayaa jawaabtaada inay ka mid tahay laga yaabo talooyinka ay soo jeediyeen bal aan dhageysano haysa عبد ما تنياي السؤال شو سو جديني سؤال مهم وا هدي لا ربا in laga gudbo dibka hadda aan ka hadlayno ee Soomaaliya ragaadii waxa muhiim ah in la helo dadka ka saar laha dibka Soomaaliya haysta dawladda Soomaaliya ka jirta ama dawlad goboleedyada shaqooyin badan bay qabteen resource-ka ku yar iyo duruufaha haysta marka loo fiiriyo wax badan bay qabteen laakiin haddana waxaad isdhihi kartaa haddii si ka duwan sida loo manage gareynayo wax loo manage gareyn lahaa in natiijada maanta taagan mid ka duwan ay soo baxday waxaa lagu mashquulsan yahay oo hadda inta badan international community-ga dadka donorska iyo dawladda ay inta badan ku mashquulsan yihiin sidii u dhisi lahaayeen hay-adihii dawliga ah institutional capacity sidii u dhisi lahaayeen haddana dhibka taagan in aragnay waxaa ka mid ah in dadka madaxda ka ah Soomaaliya intii la shaqaaleyn lahaa dad qualified ah oo aqoontii iyo takhasuskii iyo waayo-aragnimadii khibradii aqooneed leh in la shaqaaleynayo qof la leeyahay qofkan macnaha ku kalsoonahay هو كسر أنا وعوي 4.5 بوس بوعنيا بوس كسرك معناها قف كان وقت لشقين كرنا السياسة دي يعني فكر كيجو واسفهمني وهو كل صانع قف كان وهدي مثلا أنا عن وحي حوجا يرها هول عن قبصنا إما كشفه مقطع مركب waxyaabaha tala soo jeedintana waxay ka mid tahay in la helo system looga gudbo systemka asaga system dadka Soomaaliya jooga ee aqoonta leh iyo kuwa qurbaha jooga ee aqoonta leh ay la abuuro system ay kaga qayb qaadan karaan dawladda oo ay kaabayaasha dawliga ku dhisi karaan iyaga hadii aan lahayd foomamkii hadii aan lahayd shuruucdii hadii aan lahayd systemkii hadii aan lahayd macnaha qaabkii ay processkii iyo procedureska ay dawladda hay'adaha dawliga ku shaqeyn lahaayeen oo macnaha markaad fiiriso dawladda talaabooyinka la qaaday waxaad arkaysaa in markii Abdullahi Yusuf la doortay in dadkii qabqablayaasha ay madax ka noqdeen wasiirada ay noqdeen iyadoo markaa la leeyahay shidadooda iyo dhibkooda hala yareeyo waxaan hadda maraynaa marka heer macnaha ay dadkii qof qurbaha ka yimid intii CV-giisa uu diro qof ay saaxiibo yihiin ama ehel ahiin uu u gudbiyo in isaga la shaqo so systemku wuu socdaa laakiin still meesha loo baahnaa ma gaarin weli halkaad naga soo wici kartaan waxa uu yahay 612-353-5596 waa barnaamijkii saaka iyo Minnesota oo aan saakana ku marti qaadnay Isaaq Sheekh Maxamed oo isagu madax ka ah hay'adda daafurnaanta oo iyadu ka shaqeynaysa bal in ay soo ururiso xogaha ku saabsan dhibaatooyinka Soomaaliya waxa salka u ah iyo waxa looga bixi karo haddaba naga soo waca telefoonka lambarkaasi 612-353-5596 وحوم
dhaawataan micnuhu haydin dhacee waa tahay isaaq waxa aan noo maraysay aniga adiga shacbiga laftigiisu dhibaatada waa ka bar marka sida uga bar yahay aad soo ogaateen inuu shacbigu lug ku leeyahay dhibaatada Soomaaliya laftigeeda isagu lugta u hayo ayaanu haddii aan leedmo yar asaate khadka telefoonka intaan jawaabtaada u gelin bal khadka telefoonka halo assalaamu calaykum halo السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي وحليها محمد عبدي من السودان شوقا. محمد عبدي وكم مقليا نينكا مرتبان وكم مقليا. هو برنامج في عن وحلون بها يستخدموا مع الشيء هاي هوشا في عن صوتي إلا الدلالو وتذكر الوعي قلي أنا وامش في عن وحن سويدين يا إنسان مركا دقيقتي وبدأ حمر بعد وركا كتو حقتي ما تكتي قوبها كلي الصومالي حمر قرب معها دولة الصومالي ودلوي موصلة دباسة ما تجيك محلقة وقت أو حمر الصومالي كلية ما هو عاصمة قصي تاي والدولة دي تاي وحاشعلان لها أنا ويدين لها إنه قارب الميلك والقبولة كان إذا ما بالقبولة هذا أما ميلا كلا قبولة أي كيش ما بالقبولة قاري كلا يهنا أقوى رنكيسة أقوى رنكيسة وكسر على ميلها وهذا ما سنتين دمانتي من البدين السلام عليكم. هذه أربعة ما سنتهاي محمد عبدي ساق وكم مغليا وحرجني إنه جواب إنه كوهايو. وما تنيهاي محمد ورنتي سوماليا دي ومعمول بدن باكج للسوماليا دولة دحنا حمر بيكو كوبنتهاي أنو مركان سوماليا تقني حمر بان تقني محيلي حمر ود سنترالكي دولة فدرالك سوماليا waxay tiraahdaa mas madaxa laga dilaa marka xamar baan tagnay hasaate waxaan la kulanay dad badan oo ka tirsan maamulada مثلا هدي أهان لهيد كونفور قلبيد معمول كذا وكله مدحوينه هذا يدد كترسن قلها وزير دان إسكارجني هدي أهان لهيد قلمدو وكله دد كترسن بان يجانا إسكارجني بنتلان وكله دد كترسن بان إسكارجني جبلان وكله تو actually one تكني و one الله هذا اللي معمول كلية عن إسكارج ودولة سومالان marka hiiraan iyo shabeellada dhexe maamulkooda wali lama diyaarinin waxaan wax bilowa qorshaha anaga wuxuu yahay inaan Soomaaliya inkastoo ay hal wadan ay tahay Soomaaliya haddana in aysan maamulada ka jira isla jaan qaadi karin oo isku sin aan loo abaari karin oo مثلا Puntland ka waxa laga yaabaa waa 17 sano system ahayd maamul ahayd inay ka duwan tahay Jubaland iyo South West iyo Galmudug oo kale waxa laga yaabaa kuwa hadda wali aan samaysmin shabeellada dhexe iyo Hiiraan inay ka duwan yihiin baahidooda iyo systemkooda kuwan hadda samaysmay oo kale laakiin waxaan xoogga saareynaa dawladda dhexe ee Soomaaliya kadibna ujeedadana ma aha kaliya inaan ka hadalno musuqmaasuqa laakiin waxa qorshahanagu wuxuu yahay inaan ka caawino hay'adaha maamuladan hadda aan sheegaynay inay sameystaan waxyaabaha la yiraahdo anti corruption laws oo shuruucda lagula dagaalamo musuqmaasuqa in la sameeyo in seminars loo qabto maamulada hadii aan leeyahay baarlamaanadooda hadii aan leeyahay maamulada gobolada degmooyinka hadii aan leeyahay wasiirada hadii aan leeyahay in la personalize gareeyo musuqmaasuqa oo shakhsiyan qofka loo taabsiyo waxa uu yahay musuqmaasuqa dhibaatada asaga shakhsiyan uu ku leeyahay uu soo gaarsiinayo musuqmaasuqa oo la yiraahdo qofkan lacagta qaadanaya isaga laaluushka qaadanaya in la tuso in isbitaalkii ay xaaskiisa ku dhal lahayd uu dunsan yahay isagana uu lacag inta qaata jeeb gashanayo oo business ku sameysanayo in qofkii si hoose loo taabsiyo oo lagu baraarujiyo dhibka uu leeyahay marka qorshahanaga waa sida waan gaari doonaa maamulada wali ayna gaarin waan ku tala jirnaa waan mahadsan yahay maxamed waa tahay telefoonka aad naga soo wici karaysaan waa 612-353-5596 waxaa marti noogu ah Isxaaq Sheekh Maxamed oo isagu ah madaxa hay'adda